wargeyska New York Times ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu bixiyay oo kaliya 750 oo ah canshuurta dakhliga sanadii 2016 oo ahaa markii uu xilka u tartamayay iyo sanadkii ugu horeeyay ee aqalka cad uu yimid. wargeyska oo sheegay in ay heleen macluumaadka iyo waliba diiwaanka canshuur bixinta ee madaxweynaha wadanka Mareykanka iyo shirkadihiisa 20 sano ee ugu dambeysay ayaa waxa ku andacoonayay in canshuurta dakhliga uu san bixinin 10 sano oo kamid ah 15 kaasi sano waa 20 kaasi sano. macluumaadkan uu daabacay wargeyska New York Times ayaa shaaca waxa uu ka qaadayaa in muddo sanadaha uu madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu ka maaganayay bixinta canshuuraadka uuna arintaasi dhagaha ka fariistay. Mr. Trump ayaa warbixinta uu qoray wargeyska ku tilmaamay warar been abuura. xaqiiqadii waan bixiyay canshuurta wadanka arintaasina waa arin been abuur ah. marka aan canshuur celinta sameynayo waxaan ku sameeyaa mid lamid ah mid dadka kale ay sameeyaan. waxa sidaas sheegay madaxweynaha wadanka Mareykanka oo warbaahinta la hadlayay. madaxweynaha Donald Trump ayaa waxa uu marar badan la kulmay caqabado dhanka sharciga kadib markii uu diiday in uu hay'adaha ay qusayso la wadaaga dukumentiyada la xiriira inta ay dhan tahay hantidiisa iyo waliba ganacsiyadiisa kala duwan. waa madaxweynihii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 1970 taasi oo aan shaaca ka qaadin canshuur celintiisa inkasta oo aan sharci ahaan aysan waajib ku ahayn in arintaas iyada uu sameeyo. madaxweynaha wadanka Mareykanka macluumaadkan uu daabacay wargeyska ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilli lagu wado in madaxweyne Trump uu ka qayb galo dood loo qabanaya isaga iyo musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. waxaa sidoo kale toddobaadyo uun ay ka harsan tahay doorashada madaxweynenimada ee wadanka Mareykanka oo la filayo inay dhacdo 3 bisha 11. wargeyska ayaa waxa uu xusay in ay dib u eegis ku sameynayeen canshuur celinta la xiriirta madaxweyne Trump iyo waliba shirkadiisa laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo waliba canshuurtiisa shakhsi ahaaneed ee sanadihii 2016 iyo 2017 ololihii doorashada iyo xil wareegiisi ama waqtigii uu xilka la wareegay ku kala beegna. arintan ayay dadka arrimaha siyaasadda wadanka Mareykanka indheeyay leeyihiin madaxweyne Donald Trump caqabad ayay ku keeni doontaa maadaama ay ku soo aaday toddobaadyo uun ka hor doorashada iyo sidoo kale maalmo uun ka hor xilliga dood adag la filayo inay Joe Biden iyo isaga hor yimaadaan. halka kuwa kaleeto ay leeyihiin waxba saameyn kuma yeelanayso oo 4 sano oo kursiga joogay ayay saameyn ku yeelan lahayd haddii madaxweynaha wadanka Mareykanka ay u xeerba xiro ama ay jirto wax dabra oo sharci ah. madaxweynaha wadanka Mareykanka isagu haba yaraatay arintaas iyada waxa uu aaminsan yahay inaysan waxba ka jirin sumcadiisa iyo tan shirkadihiisa iyo ololihiisa doorashadana lagu carqaladeynayo. cabdi ninka Trump wali uu wada horta fiiri mutay dambiga ugu xun yani civil maaragtay waxa lagu inta badan waa civil cases hadii aad fiirisid Mareykanka yani qofka inuu ka weecdo maaragtay canshuurta waana dambiga ugu xun oo qofka shacabka intiisa kale ka gali karo. you know inta badan yani warninkan canshuur buu bixin waayaha بمعنى يعني كتان ويان أو ديجينا أيون نوجايا بمعنى وحويان you know dadkaas horumar bay gaareen maaragtay qofka uu dareemi kara canshuurtu bixinayo waa jidku isticmaalayo waa miis you know everything bihi caafimaadkii wax walba waa taam weeyaan hadii aad fiirisid shilin ku bixiyo wuxuu ka arkayaa wadanku ka arkaya markii la maqro warninkii Shiine ayaa u gambiyaha wax aan marka shirkadda waxaan u maleynaa IRS weeyaan maaragtay oo ku shaqaleeyo waxyaabaha canshuuraadka marka arrintan maxay xilligan u timaad yani waxaad moodaa maaragtay olole campaign baa lagu jira ninkana maaragtay dhowr jeer ayuu wuxuu ku gacan seeray in xitaa maaragtay uu shaaciyo hantidiisa tax records kiisa
ما عرفتي حنتيدي سأنت بدن وفانا وحوليها يعني أنا 1 بليونير لكن دتك قارن وحيد أنساسنا وما لعق بدنه وحي عق جوجلنتي صعب هذا 2.1 بليون مالها 2.1 بليون وحاول يعني علي كل أنجوته وكتاجر سن كان ماركتي أفريقيا أو نيجيريان كان راح لكن waxaad moodaa isagana wuxuu inta badan ku maaragtay dhaliil ka dhigtaa war aniga khasaaro fara badan ayaan la kulmay galay marka goormaan canshuur bixinaya adar canshuur oo $750 waxa weeyaan waxaan u maleynayaa rag badan oo Soomaali oo qaxooti oo baasaboorka Mareykanka qaatay ayaa laga yaabaa bishii like $2000 inay bixiyaan marka madaxweynaha Mareykanka inuu intaas bixiyo markaan fiirino cabdi doorashadii way soo dhawaatay dood adag baa ka socota ninkii Joe Biden waxa la leeyahay toddobaadyadan gurigu ku aruuray oo socdaal iyo campaign iyo waxba muusan sameeynin waa kii haweeney madaxweyne ku xigeen u soo xushay dadka wadanka Mareykanka qaarkood waxay leeyihiin Trump rajadiisu maalmahan sare u soo kacdo Joe Biden waa la garan lahayaa qaabkiisa ما ارتساسنا ما runtii hadii aad fiirisid hadala uu maaragtay jawaab uu hadda ka hor maalin dhow 3-4 days jawaab uu bixiyay Donald Trump ayaa waxaad moodaa inay weli ka dhax shanqarayso maskaxda Mareykanka wariyaa hadii laga raayo xilka qumaati ma u wareejin doontaa transitionka yani isbedelkaas waayo transitionka wuxuu qaadanayaa from November ila January maaragtay January bay noqon doontaa in isaga hadana in maaragtay Joe Biden la dhaariyo wuxuu yiri we'll see when we get there hadiyad marka mutay jawaabtaas ayaa waxa la isleeyahay war ninkan ma wuxuu rabaa meesha in uu ku dhago miya military ku qabsado waayahay waa arki doonaa halkaas aynu kaga gudubno sheekadaasi la xiriirtay wadanka Mareykanka iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo lagu dhagan yahay hanaankiisa canshuur bixintuna oo san qancinin hay'adaha canshuuraha qaada iyo sidoo kale dadka wadanka Mareykanka intaba hadalhayn aad u badan ayaa ka taagan culayska dhaqaale ee wadanka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 iyo canshuur la'aanta uu Trump lagu sheegayo iyo xaaladda guud ee wadanka waxyaabaha ugu hadalhaynta badan ee maanta wadanka Mareykankana waa arintaas iyada